warkaygu wuxuu ku kooban yahay laba kelmadood. kelmadda koowaad waxa weeyaan inaynu dareenno haddaynu diin weyno inaan waxba inoo hadhin. hadday diintu lunto inaan waxba kuu soo hadhin, qiimo inaanay samaynayn, dhaqaale iyo guri cad iyo waxa kaloo dhammi inaanu qiimo samaynayn hadday diin la'aani dhacayso. ka labaadna waxa weeyaan haddaynu diinta saa u garanno wixii aynu ku xijin lahayn markaynu halkan joogno inaad samaysaan. haddaad taas samayn kari weydaan dee inaad iska tagtaan. waad samayn kartaan haddaad mid tihiin oo isku xidhan tihiin oo u fakeraysaan oo caqligaasi uu jiro, waa la samayn karaa. nabi maxamed iyo saxaabadiisiiba dhul gaaleed bay ka samaysteen. markay dhul gaaleed bay ahayd iyagaa u bedelay dhul islaam. madiine dhul gaaleed bay ahayd iyagaa u bedelay dhul islaam. way ka sameeyeen. ciddii ka samayn kari weydana ka hijrooda baa la yidhi, xalku waa kaasuun. ciddii ka samayn kari weyday ka hijrooda. laakiin inaga dhibta in haysata waxa weye iskuma baynan dayin. waxaynu aragnaa sidii aynu soomaaliya ugu nooleen aynu isaga noolaano wax waliba iska hagaagayaan oo insha allah ilaahay baa hagaajin doona. ilaahay inaanu toobad keenno, isku xidhnaanteenna iyo dadaalkeennana aan badinno, diinteennuna qiimaha inoo samayso. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.